sidee loo daaweeyaa baabasiirku hadduu qofka isku arko laba qayb aan kala qaadayna qaybta koowaad waa daaweyn qaybta labaadna waa qalliin daaweyntu waa dhowr qayb badanaa waxaa lagula taliyaa qofku markuu baabasiir isku arko inuu badsado qubays diiran inuu qofka ku qabaysto biyo kulul maalintii waxaa la yiraahdaa 3 ilaa 4 jeer taasi waxay ka caawinaysaa xididada dhiigga soo galay ama dhiiggu uu ka buuxsamay inay fidaan oo dhiiggu meesha ka baxo xataa waxaa la yiraahdaa qofku inuu ku fadhiisto biyo kulul weel biyo kulul ku jira inuu ku fadhiisto taasna waxay ka caawin kartaa inuu dhiiggii furfurmo xididada ay dhiiggii dib u celiyaan arooriyaashii ay firfircooni ka qaadaan midda labaad qofku waxa lagula taliyaa inuu cuno ay buunshadu ku badan tahay ama cuno buunsho leh taasi waxay ka caawinaysaa qofka saxaradiisa inay jilicdo waxay kaloo ka caawinaysaa qofka inuu baabasiirku uusan hadduu qabo uusan uga sii darin sidoo kale cabitaanka biyaha badan wuxuu ka hortagaa laguna daaweeyaa baabasiirka qodobka saddexaad waa daawooyin loo adeegsado saxarada in lagu jilciyo waa daawooyin loo adeegsado xanuun baabiye oo u badnaan karaan kareemyo ama dhiiqo la mariyo meesha saxarada ay ka soo baxdo qofka xanuunka uu ka dareemayo midda ugu dambeysa waa daawooyin hadda la isticmaalo midda ugu horeysa waxaan u bixiyay arooriye xoojiye waxaa loo yaqaanaa phlebotomic hawshoodu waxay tahay xididadii arooriyaasha ee dabcay inay xoojiyaan ay adkeeyaan si awood ugu yeeshaan dhiigga soo galay inay dib u saaraan waa daawooyin la aaminsanaan jiray ilaa muddo waxtarkoodu inuusan saa u sii weyneyn laakiin dhowr cilmi baaris oo la sameeyey uguna muhiimsanaa cilmi baaris la soo daawacay sanadkii 2012 waxaa la ogaaday in isbedel fiican ay keeni karaan saa darteed dhakhaatiirtu sanadahan aad ay u adeegsadaan daawadaas waxaa kaloo ku jira daawooyinka la adeegsado wax loo yaqaano lithuria ama anti-inflammatory waa daawooyin iyadana ka hortaga bararka baabasiirka waxay kaloo ka hortagaan cununka waa daawooyin ka samaysan badanaa steroidka bamaato ayayna badanaa u badan tahay taasi waa qaybtan ah ku daaweynta kaniiniyada sharoobooyinka kareemyada siyaabaha dabiiciga daaweynta qaybtaas aan usoo jeesano qaybtan kale waxay iskugu jirtaa farsamooyin iyo qalliin farsamada ugu horeysa waa farsamo loo yaqaano farsamada dhuujinta ama band ligation waa farsamo oo aan qofka sakiin ama midi loo qaadanaynin oo meeshii soo barartay ayaa waxaa lagu xirayaa cinjir loogu talagalay inuu cadaadiyo saasna uga hortago inuu dhiig bax yimaado ama inuu barar kasii kordho waxaa kaloo la adeegsadaa wax loo yaqaano farsamo shuuqin ama sclerotherapy waa daawo cirbad lagu durayo xididada soo bararay farsamadan hadafkeedu wuxuu yahay inuu xididkii soo bararay oo dib u laabto oo u shuuqo waxaa ku xigo qalliin laser idan waa nooc qalliinka ka mid ah laser la adeegsadaa xididada soo bararay ama baabasiirka ayaa lagu qalaa waxaana badanaa dhakhaatiirtu ay sheegaan 98% qaliimada noocan oo kale inay yihiin qaliimo lagu guuleysto kan ugu dambeeya waa qalliinka goynta oo badanaa la isticmaalo kaasoo isagana dhowr nooc si kala leh qalliinka waa qalliinka badanaa la qaato sakiinta ama midida la qaato oo qalliinka caadiga ah oo aad taqaaneen intaas hadda uga baxna daaweyntii oo aan soo koobay haddii aan dhahan xanuunkan wax kasta aan ka sheegno lama soo koobi karo saa darteed waxaan isku dayi doonaa inta ugu muhiimsan oo ay bulshadu ay ka faa'iideyso wacyigelin buuxdan ay ka helayso inaan ku soo aruuriyo fiidiyoyadan taxanaha ah idin soo diyaarin doono insha Allah